bal ka waran haddii aad subax soo kacdo adigoo isku beddela cayayaan aadan soco karin hadli karin misna xitaa aadan dhaqaaqi karin weliba adigoo ah qofka kaliya ee u shaqeeya qoyskiina deedna ay hooyada ku weydiiso war maxaa kugu dhacay maanta miyaadan shaqo aadayn adiguna aad isku daydo inaad u jawaabto hooyo weliba adigoo qolkaaga dhex jooga oo aad tiraahdo khaakh khajaf khuuq waayo muuqaal ahaan cod ahaan iyo dhan weliba waxaad isku beddesha cayayaan arrintan oo kale waxay ku dhacday Gregor Samsa ee ku soo dhawaada gacaliyayaal muuqaal aan ku lafagurayno sheekafaneedka dhalan rogod si gacaliyayaal inta aan gudagelin barnaamijkeena maanta waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe saartaan channelkeena fadlan ha ilaawina inaad laagaraysaan muuqaalkan oo aad gaarsiisaan saaxiibadiina mahadsanidin sheekafaneedka Metamorphosis oo afkeena hooyo ku noqon karta dhalan rogod waxaa alifay qalin dahablihii weynaa ee Franz Kafka. Franz Kafka wuxuu 1883 ku dhashay magaalada Prague oo kolkaasi hoos tagaysa boqortooyadii Austria-Hungary ahna haatan caasimadda Jamhuuriyadda Czech. Qoys ahaan Franz Kafka aabbihii waxaa la oran jiray Hermann Kafka wuxuu ahaa ganacsade qalafsan calool adag misna keligii taliye ah. Aabbaha Kafka wuxuu had iyo jeer ku raaxaysan jiray cadibaadda carruurtiisa xaaskiisa iyo weliba shaqaalihiisa inkastoo uu Hermann ahaa ganacsade haddana wuxuu xumaa inta uu aabba xun yahay wuxuuna duudsan jiray xuquuqda shaqaalaha dhammaantoodna way ka wada cabsan jireen. Kafka oo ahaa nin aad u jilicsan sida laga dheehan karo qoraaladiisa wuxuu 1919 qoray buug yare oo uga hadlayo qalafsanaanta aabbihiisa iyo sida uu uga cabsan jiray isagoona u bixiyay buugyarahaasi fariintii loo dira aabe. Kafka wuxuu ahaa mid ka mid ah filosoofyadii iyo weliba qoraayadii ugu saameynta badnaa qarnigii 20aad inkastoo uu magaciisa cirku isku shareeray kadib dhimashadiisa. Kafka 1924 ayuu u geeriyooday cudurka tiibishada isagoo 40 jir ah oo aanan buugtiisa qaar la daabicin wuxuuna saaxiibkiisa Max Brod ka codsaday inuu qashinka ku daro dhammaan wax soo saaradiisa. hase ahaatee Brod ma uusan fulin codsigaasi xitaa wuxuu daabacay qaybihii harsanaa ee aanan kolkaasi soo bixin. tanina waxay sababtay in mar kale uu noolaado Kafka weliba inta dunida ka dhiman xitaa haddii ay lafiisu noqdeen kuwo burburay. wax soo saarka Kafka waxaa ugu caansan sheekafaneedyada kale ah Trail, Castle, America iyo weliba sheekafaneedka aan muuqaalkeena maanta ku soo qaadan doono ee dhalan rogod. kolkuu indhaha kala furo Gregor Samsa wixii ugu horreeyay ee uu dareema ayaa ahaa inuusan dhaqaaqi karin oo isu beddela cayayaan. deedna waa uu isdejiyey isagoona naftiisa ka dhaadhiciyey inuu dhex dabaalanayo caalamka riyada. laakiin ilbiriqsiyo kadib kolkii uu arkay qolfoof adag luga badan iyo weliba calool weyn waxuu xaqiiqsaday inuusan riyoonayn oo ay wax waliba run yihiin ayna qasab tahay aqbalaadda xaqiiqadan cusub misana qaraar. durbadiiba Gregor Samsa wuxuu bilaabay inuu ka walwalayay shaqadii oo uu ka daahay iyo sida xaaladdan cusub ee la soo diristay naftiisa ay u saameyn doonto qoyskiisa maadaama uu isagu yahay qofka kaliya oo ay ku tiirsan yihiin. isbeddelka cusub ee ku yimid muuqaalka Gregor kaliya muusan saameyn jirkiisa ee sidoo kale wuxuu saameeyey maskaxdiisa iyo dareenkiisa. hase ahaatee Gregor xitaa haddii uu noqdo cayayaan wuxuu weli ka fikirayaa jiritaanka qoyskiisa iyo weliba sida uu rootigooda u soo dhici lahaa. Gregor wuxuu dhex jiifaa qolkii uu had iyo jeer ka kici jiray waxayna indhihiisu qabanayaan boorso duug ah si ay ku jiraan dharkii uu xiran jiray maalmihii uu ahaa wakiilka iibka. inta uu eegayay boorsadan wuxuu xasuusanayaa maalmihii uu ahaa bini'aadan xirta dhar qurux badan inkastoo uusan Gregor jeclayn shaqada iibka oo uu aad u karaahsan jiray kol weliba haddana maanta waxay ula mid tahay riyo oo uusan marnaba gaari karayn. dhanka kale ee qolka waxaa yaala sameecad uu ka dhagaysan jiray heesaha maadaama uu aad u jeclaa muusikada laakiin hadda jaceylkaasi wax macno ah uma lahan. mar kale ayuu fiiriyey derbiga qolkiisa waxaaba ku dhagan sawir isaga iyo qoyskiisa ah oo ay dhoola cadaynayaan
waayo sawirkani waxaa la qaaday xilli ay damaashaad iyo caways ku guda jireen oo uusan walwal iyo walbahaar jirin. si hadda Grigor wuxuu ka fikirayaa sida ay qoyskiisa dareemi doonaan markii ay arkaan xaaladan cusub ee la soo diristay wiilkooda. hooyada Grigor ayaa in badan ku soo celcelisay wiilkayga, maanta miyaadan shaqo aadayn, ka kac waa daahday se nasiib xumo. Grigor wuxuu isku dayay ilbiriqsi weliba siduu u dhaqaaqi lahaa oo u labisan lahaa si uu shaqadiisii u aado, laakiin ma lahan luga iyo gacmo, mana xiran kara dharka ay aadanaha xirtaan maadaama uu dhan weliba ka noqdo cayayaan. markii uu Grigor uusan u bixin shaqada sidii caadada ahayd, qoyskiisu waxay bilaabayaan inay ka walwalaan si ay u ogaadaan waxa ku dhac wiilkoodana. waxay gargaraacayaan albaabka qolkiisa, laakiin ma geli karaan maadaama uu qunfulnaa. ugu dambayn Grigor ayaa ku guulaysanaya inuu albaabka furo. qoyskiisii oo hamuun iyo walaacba u qabay markii ay arkaan inuu isu beddelo cayayaanna, waxaa ku dhacaya argagax. hooyadiis waa ay suuxaysaa halka aabihiis uu la anfariirayo cabsi. kolka la fiiriyo qoyska Samsa, maalmuhu si tartiiba ayay u socdeen, waxayna isku dayeen inay ka soo kabtaan naxdintii isbeddelka Grigor. sannado badan kadib, aabbaha Grigor waxuu bilaabayaa inuu shaqo raadiyo maadaama wiilkiisii ahaa tiirka dhaqaalaha ee qoyska uusan mar dambe wax taageero ah siin doonin. dhanka kale, hooyada Grigor waxaa gariiraya gacmaha walwal iyo murugo awgii, waxayna isku mashquulinaysaa howlaha guriga. waxay u muuqatay in mashquulkani uu maskaxdeeda ka fogeyn karo wax yar wixii ku dhacay Grigor. halka Grete oo ah walaasha Grigor loo xil saaray inay daryeesho walaalkeed. maalmihii ugu horreeyay iyada ayaa ahayd qofka keliya ee markay cunto u dhigto qolkiisa hubin jirta inuu ka soo baxay meeshii uu ku dhuumanayay in kale si uu u cuno cunnadaasi. Grete wejigeeda waxaa laga dheehan kara dareemo isku dhafan markii ay qaadaysa mas'uuliyaddan. walwal, xiiso iyo xoogaa cabsi ayaa dhex jiifa gunta hoose ee gudaha Grete. maalin maalmaha ka mid a markii ay u diyaarisay walaalkeed cuntadii uu jeclaa, ayay iridda agteeda istaagtay si ay u daabato sida uu raashinka u cunayo. inkastoo uu walaalkeed yeeshay qaab cusub, haddana weli waxay qolkiisa ka urinaysay udugii iyo caraftii hore ee walaalkeed. daqiiqado kadib, Grete waxay isaga baxday qolka iyadoo danaheeda raacatay. hase ahaatee Grigor raashinkii iyo caanihii loo keenay ma cuni karo oo wuxuu rabaa cuntada ay cayayaanadu cunaan. kolka ay Grete qolka ku soo laabatay, waa ay murugootay, waxayna xaqiiqsatay in walaalkeed uusan mar dambe xiisayn doonin cuntooyinka bini'aadamka. Grete waxay dadaal ugu jirtaa raadinta cunto uu cuni karo walaalkeeda, halka aabbuhu uu shaqo aado, hooyaduna ay ku mashquulsan tahay howlaha guriga. tani waxay muujinaysaa in dib u qaabeyn lagu sameeyey xaaladda qoyska Samsa, oo uu qof waliba isku dayayo inuu noqdo tiir uu kan kale ku tiirsanaado waqtigan adag, halka Grigor uu noqdo daabade iyo weliba dulsaar. wuxuuna maalintiisa ku qaadan jiray dhegaysiga codadka ka soo baxaya hoosta albaabka. maalin maalmaha ka mid ah, Grigor wuxuu maqlay codkabaneed khafiif ah oo ka imaanaya qolka Grete. muusigadu wuxuu ahaa xiriirka keliya ee u haray Grigor oo uu la lahaa dunida dibadda ka jirta. codka Gretena wuxuu u noqday nasteexo ruuxdiisa ku xayran afarta derbi qolkiisa. habeenada ka mid ahi, Grigor wuxuu maqlay qoyskiisa oo si walwal leh uga hadlaya xaaladooda dhaqaale. wadahadalkani wuxuu taabtay qalbiga Grigor, wuxuuna dareemay dembi maadaama uu mar ahaan jiray qofka keliya ee qoyskiisa dhaqaale ahaan taageera. qoyska Grigor waxay go'aansadeen in qayb ka mid a gurigooda kireystaan si ay isaga yareeyaan culayska dhaqaale oo ay wajahayaan. waxayna go'aan ku gaareen inaan marnaba kireystayaasha loo sheegin xaaladda uu wiilkooda ku sugan yahay oo laga qariyo. 3 kireysta ayaa soo degay gurigii reer Samsa. qolka Grigorna keliya waxaa geli jirta Grete, oo qolkiisu wuxuu noqday meel ay qoysku si tartiiba u ilaabeen oo aan la danaynayn. hooyada iyo aabbaha waxay si gaar isugu dayayeen inay iska gadaan kireystayaasha oo ay farxad iyo reereen ku soo dhaweeyaan, halka Grete ay isku mar la tacaalayso dugsigeeda iyo mas'uuliyadaha sii kordhayay ee guriga. Grigor
wuxuu baqbaqa albaabka ka daawanayay isbeddelka cusub ee gurigooda ka dhexdhacayo iyo sida ay qoyskiisu isugu tashanayaan. habeen ay casho u wada fadhiyeen qoyska Samsa iyo kireystayaasha ayaa Gareth waxay go'aansatay in kireystayaasha ay u garaacdo qaraami oo ay jawi qurux badan ku soo dhaweyso. waxayna durbadii bilowday garaacista kabanka. Grigor oo maqlaya muusiga wuxuu si qoto dheer u dareemay hilowga walaashii iyo xiriirkii uu la lahaa qoyskiisa. codka macaan ee walaashii iyo jabaqda kabanka waxay dabaqiyeen maskaxdiisa. deedna si lama filaan ayuu goobtii lagu caweynayay ku yimid. goobtii oo ka jirta farxad iyo dhoola caddayn waxay hal mar isku beddeshay argagax, buuq iyo walaac ka dhex aloosmay kireystayaasha iyo reer Samsa. muuqashada Grigor ee lama filaanka ahayd waxay xaaladii u rogtay fowdo. kireystayaashu iyagoo naxsan ay boorsooyinkoodii la ordeen, halka qoyska Samsa uu mar kale ka biyo cabay webiga quusta. waxaana habeenkaasi dhulka ku da'ay dhibicdii ugu dambeysay ee dulqaadka Gareth, iyadoona durbadiiba qoyskii u soo jeedisay sida kaliya ee farxad iyo deganaan ugu noolaan karaan inay tahay in Grigor uu meesha ka baxo, kolkaasna ay nolol wacan bilaaban karaan. Grigor habeenkaas ayuu dareemay firaaq gudaha ah iyo weliba inuu yahay meyd socda. kelinimada sii kordhaysay iyo siday qoyskiisu u arkaanna waxay ku sii beertay walbahaar iyo firaaq kale oo qoto dheer. jirkiisu waxa uu xamili waayay culayska iyo alhumooyinka afarta dhinac uga imaanayo. waxaana subaxyada ka mid ahi qolkiisa lagu arkay meydkiisa isagoo dhintijir ahaan, dareen ahaan iyo weliba ruux ahaan. subaxdaasi Grigor si degan ayuu u jiifay sariirtiisa. waana subaxdii ugu horreysay ee uu ka nasta xanuunkii iyo weliba kalinimadii uu muddada dheer la tacaalayay. dhanka kale qoyska Grigor waxa u bilowday maalmo farxadeed, waxayna go'aan ku gaareen inay u guuraan meel ka baxsan magaalada si ay nolol cusub u bilaabaan, iyagoona iska ilaabaya Grigor oo mar aha tiirdhaxaadka reerka. kol ay ku nasanayeen beer ayuu midkoodba midka kale xasuusinayaa sida ay uga farxasheen culayskii Grigor iyo sida ay u dhisan doonaan mustaqbal ifayo isaga la'aantiisa. dib u dhalashadoodu waxay noqotay hadiyaddii ugu dambeysay ee uu Grigor ugu tagay iyaga. dhab ahaantii sheekafaneedkani waxaa ku jira fariimo badan oo faylasuf Kafka u diraya caalamka. waxaan ugu weyn fariimahaasi in haddii aan wajahan xaalado adag ay aad inoo dhibsanayaan xitaa dadka kuwooda inoogu dhow, iyadoona ay macquulba tahay in qaarkood ay jeclaysan lahaayeen inaan mar uun dhimo lahayn. in haddii aad dhimato shaqo weliba ay sideeda u soconayso oo aysan jirin qof adiga kuu joojinayo, xitaa haddii aad tahay qofka uu qoyskiina ku taagan yahay. Grigor kolkii uu soo kacay, sababta ugu weyn oo ugu walwalsanaa shaqada oo uu ka daahay subaxdaasi ma ahayn jecel uu u qabay shaqada, balse wax uu ka walwalsanaa in haddii shaqada uu ka maqnaado ay qoyskiisu la kulmi doonaan culaysyo dhaqaale. tanina waxay muujinaysaa inuusan Grigor iyo qof waliba isaga la mid ah uusan xor ahayn, oo in badan oo ka mid ah mas'uuliyadaheena waxa si dadba inoo saara qoyska, bulshada amaba nidaam nololeedka, oo go'aanadaynu maaha kuwa si buuxda u madax bannaan. kolka aynu fiirino sooyaal ahaan, waxaa buuggani la daabacay 1915 xilli uu dagaalkii koowaad ee adduunka uu socday. kolkii uu soo baxayna caalamka oo dhan ayaa la ashqaraaray, waxaana la iswada weydiiyey sidee ayuu qof dhani isugu bedeli karaa cayayaan. soomaha arrin laga anfariiro. dhanka kale dadku lama aysan yaabanin daadinta dhiigga masaakiinta, dilista carruurta, uurgoynta hooyooyinka iyo weliba dhibaatooyinkii ka dhalanayay dagaalkii koowaad ee adduunka. se waxaa la isweydiinayay sidee ayuu qof isugu bedeli karaa cayayaan, taas oo muujinayso in boqolaalka kun ee la dilayay ay iska caadi yihiin, halka hal qof oo cayayaan isku bedelay loo arkayay wax ka baxsan hanaanka nolosha iyo inay cirka dhagaxyo ka soo daateen. sidaa darteed waxaa macquul ah in Kafka uu dirayay fariin ah ma hal qof oo cayayaan isku bedelay ayaa daran, mise boqolaal kun oo ujeedda la'aan nafta la dhaafiyey ayaa daran. qoraahyada aan kala soo baxay buuggani waxaa ka mid ah la falgelidda xayawaanka,
ayaa ka fudud midda dadka. Haddii aan wax yar sii seexdo, ma ka badbaadi karaa dhammaan waxyaabaha dhacaya? Dadka qaar si joogta ay isku bedelaan oo weligood run sheegayaal iyo daacad toona ma noqdaan. Shaydaan ha lagu salido dhammaan wejiyadooda kaliya aamus. Mararka qaar aamusnaantu waxay ka xanuun badan tahay wax kasta oo la sheegi karo. Qolkayga ayaan kali ku ahay maalmo badan. Dhibaato ma laha. Miyaanan dunidaba sidoo kale sanado badan kali ku ahaan jirin? Haa, dib ha u eegin gadaashaada. Sababtoo ah meeshaasi hadda ma aha meesha aad taagan tahay. Aniga mooyee, cid kale ima aysan niyad jabinin. Dibadda markii inagala eego, waxaan u ekaanaynay kuwa xur ah. Laakiin dhab ahaantii mid kasta oo inaga mid ahi waxaa ku xirnaa xarga aanan la arki karin. Markaan garan waayo meesha aan kaga jiro nolosha qof, waxaan doorbidaa inaan meelnaba kaga jirin. Sababtoo ah hubanti la'aantu waa qiimo la'aan. Kolka aad rabto inaad baxdo, waa inaad u baxdaa si aad meel u gaarto, oo aadan u bixin inaad baxsanayso awgeed. Waayo meel kasta oo aad tagto waxay noqonaysaa nuqul ka mid ah meeshii aad ka carartay. Si joogta ah inuu qofku u kacaa maalin weliba waxay qofka ka dhigtaa mid daalan. Qofku waa inuu hurdo ku filan. Markaad lumis ayaad fahmaysaa in wixii aad haysata aadan adigu si dhaba u lahayn. Jidka u horseedaa dadka weynaanta wuxuu kaliya maraa tawaaduca. Haddii aanan nafteyda u xakamaynayn hooyaday iyo aabbahay dartood, mar hore ayaan ka tegi lahaa shaqadeyda. Waxaan u tegi lahaa maamulaha anigoo si toos ah ugu sheegi lahaa waxa maankayga ka guuxayo. Markaas ayuu malaha kursiga ka dhici lahaa. U noolow si aad u faraxsanaato, ha u noolaan si aad dadka kale u farxad geliso. Wuxuu si aad ugu cabsanayay dhimashada, sababtoo ah weli si dhab ah uma uusan noolaanin. Qofku ma fulin karo dhammaan waxyaabaha uu ku riyoodo. Riyo kastana u wax ma noqoto. Kuma sharixi karo si aad u fahanto. Mana awoodi inaan qof kale fahansiiyo wax maskaxdeyda ka guuxayo. Xitaa anigu nafteyda si buuxda uma fahmo. Ugu dambayn, haddii aad halkan nala soo gaarteen, la jirkiina farxad ay noo tahay saaxiibayaal. Inta aan barnaamijka xigay kaga kulmi doonana, waxaan idinkaga tagaynaa. Dunidu waa dulqaad, dadaalkuna waa muhiim.